dhawaan waxay ciidanka bileyska ee gobolka Awdal xabsiga u taxaabeen laba xildhibaan oo ka tirsanaa golaha deegaanka ee degmada Boorama oo kala ahaa xildhibaan Hayte iyo sidoo kale Maxamed Faarax Dheereste oo hore maayar ku-xigeen ka soo noqday degmada Boorama ayaa muddo 5 cisho ah ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Boorama. Saaka ayaa waxay xoriyadoodii dib u heleen labadan xildhibaan ee ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Boorama kadib markii ay ka soo baxeen xabsiga dhexe magaalada Boorama ayaa waxay la hadleen warbaahinta waxaana ay faahfaahiyeen waxyaabihii sababay xadhigooda. ugu horeyn Maxamed Faarax Dheereste maayar ku-xigeenkii hore degmada Boorama oo hadlay ayaa waxa uu ku tilmaamay waxaan u malaynayaa muddo badan ayaa agagaarka xabsiga iyo wax la naga dhowrayo maanta soo baxnay waxaan u xirnayn hawlo toleed kulay taasina waxa weeyaan tii aan xildhibaanada u ahayn habase ahaatee waxaan halkan hal iyo laba ka oranayaa sababihii aan u xidhnayn oo ahaa hawlo qaran oo ahayd in reerka baahiyaadkii jiray uu si salmiya oo aan turxaan lahayn u soo bandhigtay cabashadaasoo in badan soo noqnoqotay habase ahaatee la dhageysan waayey taasoo ay kaliftay in ma garanaysaa kacdoon ka dhasho kacdoonkaas ay hogaaminayeen odayada reerku habase ahaatee odayadii markay safgaran waayeen groupkii ay hogaaminayeen ay yiraahdeen xildhibaanada ayaa hawsha naga fududeyn kara kii sameeyay markuu hawshii dhameyn kari waayeen oo annaga nagu soo dul saaraana waxa weeyaan caqabad bay noqonaysaa kulay waxaan u malaynayaa in bulshada inteeda badan ay ka dharagsan tahay odayadii markaa hawshan lahaa ee garwadeenka ka ahaa iyo ciidankii ay wateen ee ay meesha dhigteen haddii ay safgaran waayeen in annaga soo dhexgeliyaan waxaa la iska foolxun kulay barasaabka iyo gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka iyo odayada qaarkood inay gacan saar yar oo foolxun yeeshaan oo ay annaga wixiiba nagu soo leexiyaan waa mid aad iyo aad aan uga xunnahay barasaabkana waxaan uga fadhinaa hadduu caddaynta keeni waayo iyo waxyaabaha uu nagu xidhay annaga watuu loo joogi doono isaguna waxa halkaasi hadlay xildhibaan Hayte oo dhankiisa hadlay ayaa waxa uu yiri beeshaanu ka soo jeedno oo si hagarle uga qayb qaatay soo deynteedii waxaana leenahay mabaadiida iyo fikirka ay aaminsan yihiin reerku guud waanu la aaminsanahay hadday xarig noqoto ma hadday noqoto meel kasta waanu ogolnahay halka ay reerku maraan baanu maranaa waxaana leenahay barasaabka gobolka Awdal كل وان بمالنا كل مالنتي دون ويدنبيس جمال عمر تبع تلفزيون عالمي بدعة 24 تي في مقالة بورما.